يعني هذا وحاول ولا فهم سوما صوالح ما عارف كرا marka meeshan ka baxaysaan idan koon wixii hore idan ku jiray ay idan ka daateen oo wax cusub idan galeen waxa idan galan maxay waxa naga halaysan waa madax dadka u shaqaysa oo aan ka shaqaysan hasbata oo dalka sharcigiisa ilaalisa oo ummadda isku haysa aan xoolaheeda qaadan on dadka u kala eexan on reer iyo waxaas aysan ahayn on villa Soomaaliya aan qabiil looga dhex sheekaysan oo ruuxa madaxweynaha dalka uu yahay ruux Soomaali oo dhan kulligeed ka qabiil u ah warca Soomaa kulli madax u yahay si siman reerkiisa gaarka micna ay leeyihiin lama arko hadda waxa waaye dawlad goboleedyada iyo villa Soomaaliya markii la isugu tago reera ayaa ag fadhiya marka micnaheeduna waxa waaye dawladdii reeraa soo faragelisay dawladnimada dawladdiina waxay faragelisay qabiilkii kaaba qabiilay samaynayso ma qabiilkana waxaan aqoon asna villa Soomaaliya soo fadhiistay ma dhaqaaqi karaan lugaha isku duubteen marka qabiilkana waa dhaqaaqi la yahay dawladdiina waa dhaqaaqi la'ada waxa was dhex galeen in is dhex galaan la marbo taa horta halkaas uga baxaynaa waa isla fahamnay qodobka labaadaan rabaa inaan waxa waaye sida loo xalliyo mushkilada xalal weydiinaysan marka sida loo xalliyo laba arrin ayaa marka la rabaa isbedel in lagu sameeyo waa laba shay shayga koobaad waa ruuxa Soomaaliga ah sida u fikiraayo haddii fikirku kaa khaldan yahay ficilkaagu waa khaldan yahay miyaa isku khilaafsanaa intaas fikirka saad u fikiraysa hadduu khaldan yahay ficilkaagu waa khaldan yahay marka waxaan fiirahaynaa ruuxa Soomaaliga sida u fikiraayaan fiirahaynaa marka ruuxa Soomaaliga aniga 89 ayaan bilaabay arrintan ruuxa Soomaaliga sida u fikiri markaasaan waxaa waaye markaan masterka sameynayaan ka sameeyey marka waa ruuxan Soomaaliga maxaa horta ku jira maskaxdiisa ruux kasta oo Soomaali maskaxda waxaa ugu jira saddex arrin qabiilkiisu waa ku jiraa islaamnimana waa ku jirtaa Soomaalinimana waa ku jirtaa saas ma aha mid afraad yaa ku dari kara oo ku jirta saddexaasaa ku jirta waa nin Soomaaligu waa ruux reer hebel ka dhashay oo muslim ah oo Soomaalina ah Soomaalina waxaa ah qabaa'il muslim ahoo la isku daray marka la isku daray Soomaali noqonaya marka la kala bixiyana qabiilay noqonaya marka ruuxa Soomaaliga ah qabiilna waaya muslimna waaya Soomaalina waaya saddexdaas arrimood ayaa ruuxa Soomaaliga kooban yahay fikirkiisa aniga marka su'aalaan keeno horta saddexdaas ma la fahamsan yahay waa su'aal waa qabiil maxaa la dhahaa imtixaankaas ku dhici doontaa waxa la idinku xuquuqiyo maalin kasta oo la qabiil qabyaalad la idin akhriyo maalin kasta su'aasha marka idin weydiiyo imtixaanka ku dhicina ka baqaya marka waxaan rabaa ay difaan karaya qabiil maxaa la dhahaa haye gacanta la taagayaa qabiil illa difaan karayaan rabaa professor ilaahi baa quraan ku sheegay qabiilka yaa qabiilka waa midka anagu sidaan aaminsanahay aan ka dhalanay aan ka soo jeedno sida familkiisa kale kaba soo qaad qofku wuxuu yiraahdaa aniga waxaan ahay reer hebel qabiilkaas ayaan ka soo jeedaa sidaasaan aaminsanahay anaga definition ma aha sax ma aha waxaa rabaa define qabiil maxuu yahay how to define qabiil definition la rabaa tacriif qabiil waa la tacaarufo in la isku aqoonsado la isku yaqaano qofkaan waa inay hebel wuxuu ka dhashay reer hebel wuxuu ka soo jeedaa reerkaas waxaan aaminsanahay inay tahay oo u aqaanaa inay tahay sumad qofkaan in la aqoonsado identity-giisa ciduu ka soo jeedo waa maasanta yaa kale tacriifi kara qabiil hadaa qeexo ana ahaanteeda qabiil waa koox dad ah oo isku arka inay ka soo jeedaan hal qoys سودينتنا وحنا القرآن يعني الله سبحانه وتعالى القرآن كتبه يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مثلا بل أنا قاعد في ضايع إذا تعرفيه قبيل مركز لقى هذا لا يوادت
qabiil waxaa la yidhahdaa dadka diyo wadaagga ah. diyo kooxda diyada isla wadaagtaahu amba isku abtirsinay noqon karaan amba alliance ay noqon karaan, taxaaluf ay noqon karaan. laakiin shardigu muxuu yahay? diya isla bixiyaan. inta diya isla bixisaahu waxay leeyihiin collective defense, difaac mushtaragay leeyihiin. ciidankooda ayay yihiin mataqaaniin? ciidankooda waa ruux kasoo qaangaar ah oo ka dhashay reerkaas. ciidanka waa kaas, kulli wada diyaar waaye. hadda gabdhihina waa kusoo darsamaan u malanayaa, laakiin marka hore raggay ahaa jireen. ragga ahaa jirta. laakiin waxaa waaye ciidanka marka waxaa waaye qabiilkaas unitka ahee diyada isla bixiyaa dowlad waaye. waa dowlad. dhulow leeyahay. haye dhul ma laho. sharcina waa leeyahay, xeer u qabaa. madaxna waa leeyahay soo maha. as ma tahay qabaa'ilka kalena waa u ictiraafsan yihiin dhulkan isagu leeyahay oo laguma haysto. sow dowlad intaas ma aha. dowlad maxaa la yidhaahdaa? waa shacab deegaan leh, madax leh, sharci leh. so intaas ma aha. ictiraafna ku dar marka la ictiraafsan yahay. dowlad ma aho. marka unitkan diyada isla bixiyaahu Soomaaliya waxa waaye waa dowlad yar waaye. yaraanta ma dowlad laguma noqdo miya? waa lagu noqdaa. Vatikaanka dhulkiisa intee la egyahay? soo dowlad adduunyada laga ictiraafsan yahay ma aha. marka qabiilka Soomaaliga ahee unitka diyada isla bixiyaa waa dowlad. ciidankiisuna waa raggiisa oo dhan ciidan u ah. sidaa darteed culamada qaar waxay yidhaahdaan dowladduna waa qabiil weyn, qabiilkuna waa dowlad yar. warcad soo ma ah. waa isku mid. dhul iyo deegaana wada leeyihiin, sharci iyo qaanuunna wada leeyihin. Soomaaliya marka 1960 inta ka horeysa isticmaalka markii la tarshay hadda ma fiirino. wasaaradda arrimaha gudaha waa la tegi karaa, waa la warsan karaa. 950 ayaa mushaar la sii jiray oo talyaanigu sii jiray. micnadu waxaa waaye 950 kaaba qabiilay ahaayeen. taas ma aho. taqriiban waaye. waqooyiga Soomaaliya 360 ay ahaayeen. waa la yaqaanaa. 60 saas day ahaayeen marka hadda meeqay noqon karaan? ha iswarsanin. waa badan yihiin marka laga hadlaa. dadka waa batay soo ma. marka Soomaaliya marka waxay tahay dadka Soomaaliyeed marka laga hadlaayo qabiil horta waa kaas. qabiil qabyaalad la'aan ma joogi karaa. horta qabyaaladu maxay tahay? qabyaaladu maxay tahay? qabyaaladu waxaa waaye waa dareen dad isku qabiil ah ay wada qabaan oo keenaya in isku damqadaan, iswada difaacaan, isku kaalmaystaan. dareenkaasaa la yidhaahdaa qabyaalad. dareenkaasu saas u yaallaahu wax xun miya? Soomaaliga baadiyaha jooga gaar ahaan hadda magaalooyinkan haddana waa la mid. hadda waa soo gashay reer baadiyaha magaalada yimide. laakiin qabyaaladaas ma xun tahay? dareenkaasu ma xun yahay? maya dareenkaas la'aantiis qabiilku ma jiri karo, Soomaalina ma jiri karto. marka qabyaaladan idinku xuquuqinaayo, qabyaaladan iyo qabiilkaanu waa kalama baxaan, isku soo han yihiin. qabiil ma jiri karo qabyaalad la'aan. waddan ma jiri karo wadaneed la'aan. waxaana haysta waay soo ma. wadaneed la'aanta waddan soosan u jiri karna wadaneed la'aan. qabiilkuna wadaneedu maxay tahay? waa dareen dadka Soomaali ka dhexeeya ma aho. marka qabiil ma jiri karo qabyaalad la'aan. waddankana ma jiri karo wadaneed la'aan. marka qabyaaladdu ma xun tahay mase ma fiican tahay? mana xumo mana fiicna. qabyaaladda wixii lagu sameeya waay. marna waa fiicnaan kartaa, marna waa xumaa kartaa. qabyaalad fiican yaa ii sheegi kara. waa qabyaaladii lagu difaacay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. abu daalib, shucba abi daalib soo qabyaalada uguma difaacin. mashruurkoodii iyo gaalkoodii iyo muslimkoodii soo islama gelin 3 sano meel uguma jir. say u difaacaan diinta islaamka oo wiilkooda u difaacaan. qabyaalad fiican ma ahayn. qabyaalada iskoolada lagu dhisanayo oo nabadda lagu keenayo la isku kaalmaysanayo qabyaalad fiican ma aha. birri ma aha. qabyaaladan qabyaalada xun la idinka akhrihayo qabyaalada akhrihayo idinku xuquuqina horta halkaas ka baxdo.
maxaa marka miisaan ah marka dadka muslimiinta ficilka waxay ku miisaamaan laba arrin macruuf iyo munkar haddii qabyaalada lagu sameeyo wax xun waa xumaahay soo maha munkaray naqanay haddii wax fiican lagu sameeyana marka kriteria jirta marka in lagu cabiro loo baahan yahay maxaa lagu cabirayaa macruuf iyo munkar diinta islaamkaana munkarka waa sheegta macruufna waa sheegta in qabiilku qabiil kale quursataa waa munkar haas ma tahay in qabiil kale ku duulana waa munkar wax un waa in qabiilku qabiil kale inta heebsado yidhahdo reer hebeelo haddaa tihiin annaka idinku waxaa naga dhexaysa calaaqaad fiican marka laysku martigeliyo gabdhaha laysku siiyo muxuu ahaa laysku kaalmaysto ma garat saas laysku barto waxaasoo dhan kulligeed maxay tahay wax fiicnaaba marka qabiilaa xun yaan laydinka maqal maalinta wixii ka dambaysa iyo qabyaaladaa xun iyo sheekadaas maaha waxaa xun wixii munkar lagu sameeyo waxaa fiican wixii macruuf lagu sameeyo taas kriteria ayadana waadix ma tahay qabiilka meel ma isla dhigna mase waxaa waaya su-aalaa ka taagaya su-aal ka qaba fikirkaas ma ka heshiinne waxaan joognaa wax lagu magacaabo ruuxii qabiilkan difaan karayay iyo qabyaaladii tanaan ka cabsaha marka inaad ayadana ku dhacdaan imtixaanka tii hore waaba ku dhacdeene waa la hubahay islaam ruuxaas oo muslima ah marka bal islaamka laga difaan gareeyo marka alislaamu ilaahay muxuu rabiyaa muslimnaad tahay tawxiidkaad qirtay waxaa tiri aniga ilaahaan rumaysanahay nabi maxamed rasuulkayga waaye haye maxaa ilaahay kaa rabaa marka adiga ilaahay muxuu kaa rabaa bismillaah magacaygu waa maxamed cali qofka markuu islaan yahay ilaahay wuxuu ka rabaa waxaa waaye inuu amarkiisa qaato adduunkan uu asaga khaliifa uga noqdo wuxuu ilaahay ogol yahayna adduunkan uu ku xukumo ninkii aan ogoleenna inuu fidyo uu bixiyo canshuur uu bixiyo wuxuu ilaahay ogoleen ninkii aan ogoleen inuu ku joogo fidyo bismillaah magacaygu waa cumar cabdiraxmaan toro waa maasan tahay islaam haddii aan qeexno islaam waxaa laga wadaa waa wixii ilaahay uu ku farayna inaad fartoontid wixii ilaahay uu kaa reebanaya inaad ka reebanootid ayaa islaam la dhahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu cabdishakuur xasan xaashi ka socda jaamacadda ummadda soomaaliyeed haddaan aragtidai ka dhiibto qeexitaanka islaam waa al-istislaam billaah isku dhiibidda ilaahay yacni wax walba intaas kusoo koobaya waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin laakiin waxaad sheegteen war aan la fahmi karana sheegteen wax la fahmi kara waxaad sheegteen ma aha khalad ma sheeginayaa ogaadayaa warkaad sheegteen khalad ma aha ilaahay in loo hoggaansamo ilaahay in la caabudo laakiin ma idinla tahay caalamka islaamka 2 bilyan aa joogta soomaaliyana waa 20 milyan waa inta jamhuuriyadda ku dhex jirta ma idinla tahay say u dhaqmaayaan iyo dhaqanka ay leeyihiin ayaa ay ka muuqataa dhaqankii islaamka ma ka muuqaya mase kama muuqdo marka fiiri ilaahay subxaanahu wa tacaala waxuu qofka ka rabyaa marka uu muslim noqdo waxuu ka rabayaa akhlaaq kelimadaasi idinka dhumiyaa akhlaaq maxaa la dhahaa waxaa la rabaa akhlaaqda waxaa ka mid a inaadna been sheegin inaadna khaa'in noqonin inaadna qof dulminin haas ma tahay inaad miskiinka ku kaalmayso inaad waalidka baari u noqoto akhlaaqiyaadka islaamka waa la yaqaanaa xag ma laha haas ma tahay macruuf oo dhan waa inaad samayso ayaa horta ilaahay kaa rabaa inaad noqoto waxaa ilaahay kaa rabiyaa axsana insaanin ee adduunyada korkeeda jooga oo dhulkan lagu aamini karo khaliifatan fil ardi marka uu sheegaayo dhulka ma lagugu aamini karaa xayawaanka ma lagugu aamini karaa dhirta ma lagugu aamini karaa environmentka ma lagugu aamini karaa bani aadamka ma lagugu aamini karaa waxaasoo dhan kulli maxay u baahan yihiin cadaaladay u baahan yihiin sinaanay u baahan yihiin aqoonay u baahan yihiin inaad taqaanay u baahan yihiin marka waxaa lagaa rabaa axsana insaanin insaanka oo nabi maxamed ilaahay wuxuu ku ammaanay keliya wa innaka lacalaa khuluqin cadiim wax kaloo laysku ammaano maa jirta ruuxa muslimka waxaa laga rabaa marka inuu akhlaaqdaas leeyahay akhlaaqdaasna inuu yeeshaa shaqa badanay rabtaa annaka marka akhlaaqdaasaa naga zuushay
وبينالي مركا لو صعبنا أزمتها وتوك مركا صار اللي وين خطرة أزمتها أزمتها سومالي إنه كل هذا عندي أخلاق لهالين أخلاق الإسلام كلهالين سيدا ما نقولهن المسلم أخو المسلم هذا نقولهن لا يذلهم سوما يحقرين يوضل منين يا هأجرجا ولا يخذله اسمه هو حتى أساس حاله رقم كينو رقم كإسلام كحاله هاي ساما نقوله رقم كإسلام دالها مية أفغانستان أساس نقوله السودان إيو دالك مسلمين تاو كل جود سيهدي يهين من نقوله هاي ده أخلاق لها هاي مايا ما بنا له شيء جنبه هذا إذا كان حواس سبب شيء وسن أخلاق لما تقنا مساجد اللي كان مشي كتاب الله مركز الدين أخنا اللي مشي صلاة مركز دكتة مركز صلاة دكتة لقمة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لقمة صلاة الدكمان أو صلاة الدكان اللي يجري أساس صلاة الدكتة صلاة وحبة كان ريبين معي تري رجعسي وحاول صلاة حتى صومال واحد صلاة بدن ماله واحد كبر عنه بدن ما جرتي كتب وقبض iyo wax ka been badan shay karti masaajidda waa buuxaan xajka iyo umrada ma saaca ma qala aada xoolaha umad inta la xada lagu aada guriyaha banaanka lagu aada lagu xajiyaa saa lagu umraystaa saas ma tahay masaakiinta inta la soo dhaca saas la yeelaa saasaa loo maleeyaa marka inta ilaahay la siro in janno lagu galaa waxa intaas kasii daran markay ducaysahayaan ilaahay waxay ka baraan jannatul firdaws jannada xataa meesha suka ma aya meesha ugu sarreysa jannatul firdaws al-a'la bilay war adigaan tuuga ah oo beenaha ah oo dadka dila oo khaa'inka ah oo ilaahay waxa ilaahay rabay aan sameeynin jannatul firdaws waxa ka keenay asbata ya marka ilaahay islaamkayna waxaa la rabaa caqiidada markaan ilaahay rumayno waxaa ku xiga akhlaaq inaan yeelano haddaba xaqay uga jirtaa marka salaada iyo soonka iyo xajka xaqay diinta uga jiraan tababar waay wax ay ka badan tahay male waa xasuusin ilaahay lagu xasuusinayo inaad akhlaaq yeelataa lagu xasuusin markaad qur-aanka akhrinayso markaad salaatuleyl dukanayso markaad dukanayso markaad soomayso markaad xajinayso kulligeed waxaa waaye tababar tarbiya ruuxiya waaye waa lagu tababaraa waa lagu xasuusinaa joogta ah waxaa lagu xasuusinayaa beenaalaha noqonin waraa tuuka noqonin waraa khaa'ina noqonin waraa cadaalad samee ilaa baraa waa lagu baraa haddana barahin ka warrama marka salaade waa dukatay waa soontay waa xajis wax dhan kulligood wax lama baran ka warrana oo waxaad noqotay tuugii beenaalaha khaa'inkaa noqotay ka warran inta baa samaysaa wax ka jira lama arko waxay lama tahay adoo jiimka tagay ee bira qaaday oo muruqa ka soo bixi waayay lama tahay maxay tarayaa ma shay kada waxay tarayso ilaa raad wixii la rabaa inay dhasho tababarkaas wixii la rabaa inay dhasho ma dhalay marka islaamkeena waa kaasaa marka islaamkeena fahmigiisa waa naga khaldan yahay ilaa kuma celcelin mana sheegin waxaa kasii daran soomaalinimada marka tanaa ugu dambaysan ka hadlaynaa soomaali yaa soomaali ah بسم الله الرحمن الرحيم مقعي حليم شيخ اسماعيل أنا وحان أرون لها صومالي وحان لها وأمد له أف يعني سوقرتان رقم أخلاق iyo يعني meel ay ku abtirsadaan leh wax walbana ka wada dhaxeeyo Soomaali ah Soomaalinimaduna waa dareen haye su'aal Kenya isku afmiya Ethiopiana marka Ethiopianima jirta Soomaa Kenyaanima ma jirto iskuna af ma aha iskuna diin ma aha marka hay akhrina marka isku afaanahay waxay taray lama arko af waa la bartaa fiiri Amerika la suumo tagino adduunka ma laga yimaado Soomaa afka waa la baro Soomaa af Ingiriiska marka isku afaanahay Soomaalnimo ma keenayso haye isku muslimaan ahayna Soomaalnimo ma keenayso waxaa jiri kara ruuxan muslim ahayn oo Soomaali ah waana jira taariikhda uga wadana khatar ah taariikhda waxaa soo baxay nin wadani oo Soomaali oo Kristaan ah jira Michael Mariana la yiraahdaa ninka gobonimo doonka hogaaminaya waqooyiga Soomaaliya u ahay oo Soomaaliya safiir ka noqday Soomaaliya ah Kristaanna waa ah Soomaalina waa ah waxa uu ahaa ninka ugu wadanisan dadka Soomaalida ku jira marka Kristaan uu noqon kariyaa muslim uu noqon kariyaa Soomaalina hay la aadin afhana hay la aadin waxaa la rabaa Soomaalinimadu say u taalaa dadka qaarkood waxay leeyihiin
wiil geeli jiroon gaajadu qabayn iyo mid san dhuuban oo sankiisu asan weyn waxaa idhaa marka jareer weyne soomaali maya markaasay imtixaan ku dhacayaan way labaa soomaaliya imtixaan ku dhacayaan ila imtixaanka waxay u imaajan gareexayaan soomaalinimada qabiil mogtaadi ya hay banaadiriinta soomaali ma yihiin maxaad ku hadlaysaa adiga marka ma dafayn karay kartaa soomaalinimadii fiiri marka soomaalinimo lama fiiri diintiina waa saas soomaalinimana lama barin waxaa jira soomaalida kama jawaabi kartiin hadda soomaali waxaa waaye soomaalinimadu laba aragtay leedahay aragti waa aragti ethnic ah ethnic hadma tahay ethniga la yidhahdaa waa jinsiga soomaaliga ahee adduunyada jooga oo Ethiopia jooga oo Kenya jooga oo Djibouti jooga oo adduunyada kala jooga oo Sacuudi Carabiya jooga oo America jooga oo jinsi Soomaaliyeed oo geeska Afrika ka tagay asalkiisa ka tagay asmata waa jinsi ethniga la yiraahdo ethnic Soomaali waa iskaalmaystaan waa isjecel yihiin markay meelaha isugu tagaan mararka qaarna waa dagaalamaan dibadda xataa ay ku jooga ethnic Soomaali waa laakiin dareemay qabaan haddii hadda dhibaato Soomaali ka dhacdo kulligood u damqanayaan Soomaa waa ethnic Soomaali la yiraahdo ومدحنا waxaas waa ka buuxaan yani turkiyiinta waa aragtay 8 dawladood waa ay kala isku turkiya qabaan heshiis turkiyin ma qabaan asmata carabta jaamacadda dawla carabiya qabaan oo wax weyn tarayn laakiin haddana waxay muujinayaan isku qabiil yihiin mogta ay isku af yihiin ay isku meel yihiin ay muujinayaan kirishtaanna waa ku jiraa yahuud waa ku jirtaa muslimna waa ku jiraa hasmaho marka soomaalinimadu marka laga hadlaayo mafhuumka labaad ee soomaalimadu waa mafhuum dawlad ku dhisan marka mafhuum dawlad noqoto waxa waaye Soomaaliya waxa ruuxa muwaadinka Soomaaliyeed la yiraahdo kaas muwaadin waa muwaadinka waa la noqon karaa Talyaaniya muwaadin Soomaali noqon karaa Soomaali noqona si Soomaali badan oo American noqoto asmaho Ilham Umar soo America ma noqon hay ma noqono marka American ay noqotay aqalkooday gashay doodad ka dhacaysa aragtaa ida taram wax kala haysta marka Talyaaniya noqon kara ruux waxa noqon kara Jarmal ka yimiday ruux waxa noqon kara ka yimid America ka yimiday on Soomaaligana jinsiga Soomaaliga aan ahayna Soomaaliyoobi kara waxa noqon haya muwaadin Soomaaliyeed hatta waa ku qoranta qaanuunka jinsiyadda shuruudaha lagu noqon haya waa ku qoranta marka annaka waxa naga lunsan waxa waa qaybta ah Soomaalinimada muwaadinka ah waa naga lunsan tahay sida dawladnimada looga lusanto kale waxa markaa nagu xoog badan Soomaalinimada qabiilka ah oo 4.5 ku jirta ayaa maskaxdayna ka guuxaysa warkaas macadiya marka Soomaalinimada dawladnimada markaan ka hadlayno waa muwaadiniin u siman xuquuqda iyo waajibaadka oo dawlad wada leh dawladdaasoo dastuur ay heshiis ku yihiin qabta madaxdeedana doorata oo si sax u doorata waa sidaas marka Soomaalida waxaa la rabaa Soomaalinimadaas marka waa daciif hadda marka horena ay xoog lahaydna waxay ku xoog badneed gareed Soomaaliya wax la yiraahdo shanta Soomaaliya la isku keeno vision aragti aan qabnay asbata marka dawladdii waxaas ka shaqeynaysa in naga duntana waxaa isku haylaanaha labadii 60kii midowday oo waxa waaye hadda safiir Israa'iil ah loo magacaabay Hargeysa ayaa loo magacaabay waa aragtay meesha marayso Soomaalinimadii meesha marayso waa aragtay marka Soomaalinimadeena ma naqaan qabiilkiina ma naqaan islaamkiina ma naqaan maxaa naqaanaahe waxba waxaan isku raacsanahay naqaan raba kulligeen oo ruux kasta annaka naga mid jawaab markii la weydiiyo ka jawaabi karo dhigi karo waa saas iskoolka laguma dhigin jaamacadaha laguma dhigin doodaha lama gelinin marka aniga waxaan rabaa inaan marka idin iraahdo maskaxdiina waa kharbneed maskaxdiina waa saxayna aqbala intaas on ila islaamka saxda waa akhlaaq Soomaalinimadu waa muwaadinimo war Soomaa waa muwaadinimo isma xuquuqda waajibaadka qabiilkuna waa unit bulsho arrin bulshadeed waay oo laga maarmaan ah qabiilkuna ma jiri karo qabyaalad la'aan qabiilka islaamkuna waa isku xiran yihiin abtirsiirada marka abtirsata meeshii abtirsiiradu kaaga dhamaato waa meeshii dadkaaga ka muslimiin kahor abtirsiina ma jirin ma dhaafsi kartaa hawiyaha markan xataa gaarsiiso irar iyo waxaas oo xataa been waxaas hadaad gaarsiiso iyo daarood Ismaaciil ma dhaafsi kartaa waxaan ma qoraysh ma jirto waa sheeko waa
ما لا دافسي كربا لما يقام به وماشي مركا أبترسله كل ما توا ماشي لقى مسلم واحد أنت كده بيسوى ولا يقانا هو ولا سجور سنة وعلمها أمريكا يوروب ما أبترسك كران فمن أنا بيقابان معاجر وعلوا أنتوا ده بدن هو إذا أسكت أش عرورته مقطع ذي جماعة كيان كان حتى واحد كوكوي ده هو إذا عرورته أسكت أش مركا هدي هو يديس أي تا كوكوي أي تاي وكوكوي ونقاه لكن ما أبترسك كران مركا أبترسيرة دان وحي كتير بتاع إسلامك مركا إسلام يا قبيل واسكو حريين ماشي إسلام كجرا قبيلة كجرا ماشي قبيلة كجرا أنا قبيلة ذا كجرت قبيلة وحلو حكمي إسلامك معروف يا منكر وحلو بحشة قبيلة كما جرت الدين إسلامك القبلية كما هي ليسان دين إسلامك بعلق هلا يا التعصب ليس منا من دعا إلى عصبية ما هو ليس منا من دعا إلى عصبية ثم تقال حديث كاس قابر ما بدأ يقالنا عصبية لقاها لو هايا وحلو تعصب كرا قبيل وحلو تعصب كرا ودنيات فشي اسمه ينازيسمكم هاي تعصب قبيلته تعصب متقانا ودنيات واحد ترى أو سمينايو أو سبرمس لقاها لايو وايد سبرمس لقاها لايو واحد لقاها لا معي تعصب قبيل حوا تعصب وايد ودنيات تعصب وايد مركا تعصب كستا أو كل جيل أو بني آدم كسنانتي إنه سمية أو الدين توربها هاي إنه بني آدم ياهي أنا هين أو إسقورس كجرو أو خلاص رأينا كجرتها تعصب وايد أفهم تسمع وعكس طلعوا تعصب أسلام جديدين لكن ودادين علماء أنت بدأوا أفسرين تعصب ليس منا من دعا إلى عصبية إلى قبلي أفسرين وأنا بين واي قبيلة ده أنت لما نولاك رمي ورا هذا لما نولاك لكن يا واحد لو قصة مين يا واحد لو قصة مين لكن من نولاك رتي صدق حاجة ما تسمع مركب هذا وعاء اللي فسري قبيلة دي يا قبيلك ودنيا دي يا ودنك ومواطنين ما كل اسم هذا اللي فسره وهذا اللي فسره كلامات دينتي يا أخلاق ودمات اللي يرى ده مركب محل كهرباء مركب اللي يرى محل كهرباء حال كهرباء مش يكرتين وحال كهرباء أنا قشة كمسكحتي إنه كل شيء ربي حصانات ولا يدين أخي كل وأنا أسكور قفتين أول مرحلات فهمتان قبيلات وحيتها إسلامك وحويها صومال ما دوحة أي تهاي أنا برضه بلدين آخرين دولة أجنبية الدولة كان قويين قبيل كان دولة كان قويين قبيل كان ناحون حواي أنا إسكافر كفتان على الكهرباء أو حواي عقل يالتان ذات كان نهاري أيكو وحنا ناس إسلها كشقية ولكن الله شيء أي إسحاقين وإسحاقين حالي ما تقارنا تلياني إنجليز كم بتغيري أنا كافي عن تان تلياننا إنجليز وافي عنا دولة ماذا أنا قاعد يسمينا في عن إذا كنا وحنتين إذا كنا محاتين قبائل مسلمة دينتين إنه وحنتها الدولة ما هل سوء آدنا قبيل كنا وحنيها ما كقبيل كنا وحنيها دينتنا وحنتها محافي عنه دولة تلعب والإصافي عن هاسمتها مركزان أقبلنا مركزان دينتنا ده علمانية ربناها دينتنا لو ما رغم كرو هاسمتها قبيل كنا أفهم دهنا هاي دينتنا نجحت كان هذا دينته واسكا واقرن وكعب سنة مكتب محمد سيد برا لكن تيجي مدوير كعب دينتي سو دينتي رعدي أصو يحور حاجة دمر واسميه أصو علماء كلها ماشي هسمع هو مركا وحان أقبلنا وحن تجين وحافي عن دولة دان تليان وكان استعمار وكان في عن دولة دي يا شعب كانوا علوبين وديدنا أنك هتانها صومالي قبيلة كلها درنا مركز دولة دي وجبهتي مكتب إسلامنا وكلها درنا وحركات إسلامك سؤال الله ما وحكي ما هيسمع دولة دي نودو مني دولة كلنا واحد إسلامنا أساس إسلامنا وصمي لنا قبيل كينا وهايناها فور وانتفافا خايناها وأنا قاعد لنا وحاجة عقل كان خرفا أفهمت السمع مركب حالة كهرباء اللي يرد حالة كهرباء فهمك إنه حتى الكهرباء إنه أوقات جد خلطن لو صعده جد كان اللي بدل لو باهي هاي سجد كان لو بدل لنا واحد عقلك اللي بدل هرت مركب كويس سيفعل صح وقصب عوام سنتين شكرا. أيوة.